waxaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey guddoomiyaha dalladda alwafa sheekh axmed nuur cabdi jimcaale oo dhowaanahan safaro dhaadheer ku kala bixinaya galgaduud si toos ayuu maanta wuxuu u soo gaaray gobolka mudug magaalo madaxdeeda gaalkacyo abbaarihii 10kii barqanimo waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey culimadiinka ahlu sunna wal jamaaca ee gobolka mudug magaalada tan gaalkacyo waxaa horjoogo u ahaa culimadiinka ahlu sunna wal jamaaca gobolka mudug ee gaalkacyo isku duwaha wasaaradda diinta awqaafta gobolka mudug ee gaalkacyo mucallim cabdirasaaq mucallim cabdiraxmaan sheekh nuur iyo guddoomiyaha mucallimiinta qur-aanka kariimka ee dalladda midnimo mucallim cabdirasaaq cabdulaahi mucallim yuusuf iyo mucallim cabdirasaaq maxamuud ceynab. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan waxaan salaamahayaa sheekhana noo yimid qaaliga ah sheekh axmed nuur iyo mashaayikhda kaleeto meesha ku soo dhoweysay ayaan salaamahayaa. waxaan ku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bacda taxiya aad ayaa ugu faraxsannahay imaanshaha sheekha. waxay yidhahdeen soomaalidu laba waxay ku fiican tahay inay joogto labana inay socoto. laba waxay ku fiican tahay inay joogto ninka waxa la deeqsiga oo loo imaanayo inuu joogo ku fiican yahay si qofkii soo aada meesha ugu yimaado. xoolihii uu ku soo dhoweyn lahaa hadday geel tahay iyo hadday lo' tahay iyo hadday ari tahayna xooluhu inay joogaan ku fiican yihiin baa layidhi. labana wax ku fiican tahay socodka ku fiican tahay layidhi. madarka iyo culummada madarka meesha ku nagaado haddee waxa weeye qoladaas looma dul qaadan karo. culummaduna waa socodka ku fiican tahay qolo ay u duceeyaan qolo ay wacdiyaan qolo maarata cibri qaadasho intaasoo xigmada baa laga helayaa. waana ku faraxsanaa dhammaan sidaan usoo dhaweyna sheekha dhammaanteen waxaa leenahay sheekh gacno fal kusoo dhowow walaalo ku jecel qalbi furan. haddii ajsaadu kala fogaadaan qalbiga ayaa isku dhow mar walba. sidaas ayaan sheekha leenahay soo dhow ayaan leenahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh nagu kulmiyey meeshaan sharafta leh annagoo soo dhoweynayna sheekheena sheekh axmed nuur cabdi jimcaale oo na soo gaaray oo maantay khaasaan soo gaaray gobolka mudug ayaantaan joogay qaybo ka mid ah maantana soo gaaray xarunta gobolka mudug ee degmada gaalkacyo. aad iyo aad baan sheekha u soo dhoweynaynaa waanu ku faraxsannahay. waxaan leenahay sheekheena ku soo dhowow. soo dhoweynta kadib ayaa shiiqa wuxuu la hadlay culimmadii soo dhoweysay waxaa ka mid ah hadalladiisa. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. علمي مليه راليها الله هذا يعني وحليم علينا آدي آذان وقامها دعلنا دمان ولا لها أن إلهي درتي اسكو جعلنا هاي يقصوا دويي سي قلبي قروح بدن قال كعيو دمان ديغانا دا أن صومري سيجارة أحبابته iyo culimada degmadan gaalkacyo ama magaalada waxaan leeyahay jazakumullahu khayran jazakumullahu khayral jazaa. ilaahi subhanahu wa ta'ala ja'ala Allahu hadha al-liqa fi mizan hasanatikum. ilaahina waxaan weydiisanaynaa subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf inuu ilaahay dambi dhaaf sida sheekhu uu noo sheegay dhamaan mashaayikhda waa ahlullaahi waa inma ya'rifu al-fadla dawuhu. nabigeena alayhi salatu wa salam wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih. marka qofka wax karaameeya asaa karaamaysan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa yidhi waa la xasriyey. culimmada bayaanka waxay yidhaahaan ikhwa iyo ikhwaana kala jira. tuxfatul ikhwaanka saasuu qoray leanno isaga laftiisa ayaa fariin u dirayaa sida anu haddaan iisoo salaamay. ikhwaanku waxaa lagu jamciyaa dadka oo saaxiibtinimada ka dhaxaydo. hadda labadii qof waxaa la isku darsata oo Soomaaliyeed waa walaalo waa taleeraa Soomaali waa dad walaala laakiin akha noocaasa haduusan diinta Ilaahay ahayn xiriirka ka dhaxeeya xoogaa adduunyo la isku darsado ay tahay akh jamciisa ikhwaan ficlaana lagu keenaa. laakiin hadduu akhu yahay shaqiiq midka oo liabli umka ah ama uu yahay kan ka sii weyn oo ah taraabudka diiniga dadka sidaan aan u wada dhalanay wuxuu raba ha ahaado intaan qabaa'ila annaga keligeen Soomaali hal baraan ahay inta kale ummadda kale waa tacaarufina. taa marka waxa lagu jamciyaa culimada ikhwa akha kula dhashay ikhwaan lama yiraahdo
walaalaha isku hooyo isku aabaha ikhwaana nahlamina ka ikhwa leeyra amma kuwa xoogaa aad maaragtay wax isku darsateen ayaa ikhwaan leeyra ilaahay marka subxaanahu wa ta'ala kama cabirin dadka muuminiinta oo sidaan oo kale qof walba meel ka soo jeedo innamal mu'minuuna ikhwa way u yiri mooyaane ikhwaan ma dhihinale kitaabkaas dhigaaye marka raalli ahaada waa mahadsantiin qabuul Allah nasiyo laakiin ani qabuulka ma wata inta ay sitiin in ka dumin raalli ahaada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh deeq shamuxudiin deeq duceysane warbaahinta diiniga sacaadad diin iyo salaama TV gaalkacyo